waxaana wanaagsan dhammaan akhyaartana daawanaysa meel kastoo joogtaanba ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii xaqiiqa raadis kaasaynu daaha kaga rogi doono qodobo ay ka mid yihiin kooxda huwan kalkaalka ictisaam ee argagixisada shabaabka iyo daacishka gacansaarka la leh oo shirweyno ay ku qabteen caawa Hargeysa Hotel Casood oo ay ku taageerayeen maamulka argagixisada firdhiye ee laascaanood ku habsatay. Shirweynahaasi ayaa waxa sutida u qabtay oo cagta mariyay dhalinyarada muwaadiniinta dalkooda iyo dadkooda jecel ee difaaca madaniga ah. Dhinaca kale waxaan ku soo qaadanaynaa barnaamijka huwantii laascaanood oo xaalkoodii sii xumaaday, khilaafka u dhexeeya dhinacyada siyaasadaha kala duwan ee ishirdiyaya, kuwa Puntland doonaya, kuwa khaatumaysan iyo qaar dhexdhexaada. 3 qol ayaa loo kala jabay. Haddaba haatan ciidankii huwanta ayaa la sheegay in guutooyin ka mid ahi ay kasoo goosteen huwantii oo ay hadda isku soo dhiibeen ciidamada qaranka Somaliland. Iyo dhinaca kale garaadadii oo iyaguna iskhiyaameeyay 12 xildhibaan ayaa la sheegay durtaba in la xulay oo baarlamaanka Puntland loo diyaariyay huwantii oo haddaba khilaafkooga birta iska aslaysa, garaadadii oo isku dhaarsan iyo dhinaca kale go-aan ay cusub oo ay gaadheen kaasi oo ay markaasi xooga saarayaan weerar xoogan oo xumad jabin ah inay ku soo qaadaan fadhiisimada ciidanka qaranka iyo kuwa madaniga ah iyo deegaanka ay wadaagta yihiin. Halkaasi oo la sheegay hadda inay isku diyaariyeen weerar xoogan saacadaha soo socda. Qodobada iyo qodobo kale ayaynu daaha ka rogi doonaa. Ku soo dhowaada barnaamijka. waa hagaag muuqaalka aad arkaysaan waa dagaal gacmaha la iskula tegay oo caawa aan waxba la iskula hadhin, kaasi oo ka dhacay hoteelka Casood ee magaalada Hargeysa. halkaasi oo kooxda ictisaam ee huwan kalkaalka ahi ay hadda bareed ayay ula soo baxeen taageeradii ay siinayeen kooxda ictisaamta ah ee haatan xooga ku qabsatay ku habsatay laascaanood, kuwaasi oo huwanta iyo argagixisada shabaabka daacishka iyo kuwa isirka daaroodka ku dagaalamaya ee halkaasi qabsaday. sida oo kalena maxaabiista ciidanka qaranka ee markaa la khiyaameeyay, yacni ciidankii qaranka loo dhigay fajida. aynu ognahay kooxaha hadda buurmadow ay ka mid yihiin ay fajida u dhigeen u gacan geliyeen raggii qabsaday halkaa birta ku gowracayay ayaa haddaba haatan wacdaraha ama arrinka yaab kale ee dhacay waxa uu yahay Hargeysa bartankeedii oo ah xaruntii Somaliland ayaa ay doonayaan niman in halkan uga dhex ololeeyaan oo ay taageero ugu raadiyaan nimanka huwanta ay laascaanood ku habsaday argagixisada. kooxba moogtahay ilaa maanta oo dhan ururinayay ama moogtahay wiigeen ugu dambeeyayba dee abaabul bay wadeen shirkaas siduu u qabsoomi lahaa. maanta ayay u suurta gashay. waxaan arkaynay muuqaala xitaa moogtahay kooxii wadani ay iska soo duubeenoo iyagoo masaajida isku soo sawirayo iyo iyagoo moogtahay cirraba bareeray oo masaajid iyo kutub lagu sawirayo. yacni filinkaasi ayaa maanta dhan socday. waxaa loo soo socday markaasi in kooxda ictisaam la soo dhaweeyo oo markaa loo ogolaado inay shirweyne qabsato oo shirweynahaasina uu yahay dowladooda yareeda ay ka samaysteen laascaanood in halka ay taageero ugu raadiyaan, taasi oo ku ah qarannimada Somaliland iyo jiritaanka iyo wadanka dhowr iyo 30 sanadood soo jiray ee loo soo dhintay loo soo jabay moogta waxa soo dhibaato loo soo maray. ayaa la doonayay in markaasi cumaamad iyo khamiis la soo xidhiyo go' la isku soo duuduubo in markaasi yacni halkaasi lagu baabiyo oo qaranka isla Hargeysa dhexdiisa halkaa lagu bareeyo ayaa markaa ay ugu tala gashay ictisaam iyagoo dowladooda firdhiye u dabaaldegaya oo le markaasi shir nabadeed baa loo qabanayaa. kooxihii huwan kalkaalkiiba halkaas ku soo urursaday
laakiinse dhalinyarada dee qarankooda difaacaysa ee madaniga ah ayaa shirkaasi dhex gashay budhka iyo bakoorada halkaasi ka dhacday waa la leeyahay waxaana kooxihii markaa argagixisada taageerayay moogtay huwan kalkaalkii la sheegay wax dhumay iyo wax dhaan raacay iyo wax gidaarka ka booday inay noqdeen waxaana la isla dhacay kuraasida waxay noqotay markaa arrinkaasi runtii mid dhiirigelin u ah dhalinyarada qarannimadooda jecel ee markaasi difaacaysa iyaga oo haatan la ogyahay qaranka dhibkaa loo soo maray haatana dee in la difaaco laysku raacay oo la ilaashado xorriyadda ayay markaa doonaya hadal iyo huuhaa iyo moogtay kitaab lagu soo gabanayo in lagu dumiyo taasina waxay keentay in markaasi jawaab kulul ay ka bixiyaan dhalinyaradu kooxihii huwan kalkaalka ahaa ayaa la sheegay nimanka odayaasha u haweenaa xitaa moogtay halkaasi dee kusoo ceeboobay qarankooga inay dumiyaan dee usoo bareeray ee go-yaasha cadcad usoo qaatay ayaa iyagoo kabalo la sheegay in halkaasi ay ka yaaceen dhanka kale waxaa sii dhiirigeliyey markaa jawaabta dhalinyartan difaaca madaniga ay bixinayeen sida oo kale waxaa burco ka dhacayay shir loogu taageerayay markaasi go-aankii uu gaadhay suldaanka guud ee beesha habar jeclo suldaan cabdilaahi suldaan cali ee ahayd in qarannimada la difaaco sida oo kale dee habar jeclona fadhiga ka kacdo oo kooxahan argagixisada ah ee qabsaday markaa boqodherkeyn iyo boodle ee gubay inay markaasi ka kiciyaan deegaanadoodii oo usoo aaraan maatidoodii la barakiciyey oo isdifaacaan hadalkaa suldaanka ayaa markaa taageera iskugu yimaadeen dhalinyarta beesha habar jeclo isku soo habarwacdeen haddaba kooxo iyaguna markaasi burcad dhuleed ah oo baryahanba moogtahay uu sameynayay ninka burmadow iyo moogtahay kooxda ictisaam oo marna dhul jiif noqonayo gawaarida afduubanayay waan ognahay laba gaadhi ay beesha warsangeli ka afduubteen iyagoo magac dil iyo sharaf dil uga jeeday ay ku cambaareynayaan yacni dee ciidanka madaniga ee habar jeclo SSB ayaa dhul jiif noqday hala yidhahda islahaayeen abaabulkoogii waxa uu markaasi hadda ooduu soo jabiyey burca yimaadeen hodheelkii ay dhalinyartu shirka ku qabsanaysay ay halkaa fawdo ka bilaabeen waxaana halkaasi la sheegay markii ay carqaladeeyeen shirkaasi in iyaguna waxay doonayaan in shirarka moogtahay qaranka lagu garab istaagaya ay dumiyaan oo ay carqaladeeyaan iyaguna si safe oo dee badbaada ah waa kooxda argagixisada ee ay hargeysa bartankeeda shir ku qabsadaan taasina waxay noqotay markaa mid dhici weyday markii ay halkaasi weerareen ayaa iyagana jawaab laga siiyey markaa in hogaamiyaashii ictisaamku isku soo urursaday hargeysa budhka iyo bakoorada dabada loo qabtay deedna la sheegay wax cararay iyo wax kufay iyo moogtay halkaasi inay kooxihii shabaabka iyo daacishka taageerayay halkaa jabkooga caawa la gaadhsiiyey waagaag dhinaca kale waxaan idin hayaa nimankii garaadadii jiqbay arrinkoogu yahay ilaa shalay ilaa moogtay daraad waa kii ay sii jiidanayeen haata way ka sii dartay xaaladii 12 xildhibaan ayaa markaa garaadgala dagaalka iyo qaar kaloo la shaqeynaya ay durtaba xuleen oo ay Puntland u diyaariyeen ninkaasi oo dee lacag badan ka soo qaatay danay ayaa markaa ninkastoo xalay tolo u lahaa anuu xama xulayo laakiin wuxuu iskaga weecinayay moogtay dee isha oo moogtay yacni inuu focuska ku qaban bislaayo waa kii moogtay dee furdhiyo lagu fasaxay in kooxii madax jabiska ahaa ee argagixisadii ay dee tallaabo ka qaadaan oo kiina garas maciidhi markaasaa darteed waan isdhiibay buu yidhi laakiin ismuu dhiibine 12 xildhibaan buu durtaba xulay marka waxa hadda ay marka xaaladda la saacno saacadan aan idiin sheegayo waa la isku hub urursaday berri toolaa lagu balansan yahay shir kale shirkaasi oo 17 xildhibaan lagu dhamaystirayo dhinaca kale kooxii kale iyaguna khaatumo doonayeen hubkay soo qaateen waxaana laga yaabaa dagaal xoogan halkaasi ka bilaabo sidoo kale guutooyin ka tirsan ciidanka huwanta ayaa soo goostay 30 nin iyo teknikadoodii ayaa isku soo dhiibay ciidanka oog fadhiya ee ciidamada qaranka waxaanay sheegeen markaa in meeshii rajabeel noqotay Somaliland wax u dhaaman aanu jirin laakiinse dadka falaqeeya siyaasadda arrimaha ku hurgala gaar ahaan arrimaha militariga shaki weyn bay ka muujinayaan sidoo kale ayay isku soo dhiibeen cutubyo ciidan oo huwanta ka tirsanay 25 August maalmihii ka horeeyay iyo inay kala jabeen way muuqatay deedna dhacdadii watii ciidanka qaranka lagu qiyaameeyay ay dhacday 25 August tiyo kale ayaa laga yaabaa la leeyahay markasta huwanta isqabsato oo ay kala jabayso dagaal qarkooga ay qarku saaran tahay
waxa ay bilaabaan weerar xumad jabina oo markaasi dhinaca ciidanka qaranka ku soo yaacaan tiyo kale ay hadaba la sheegaya hub badan oo soo gaaray ba la sheegaya saacadaha soo socda weerar xoogan ba laga yaabaa inay ku soo qaadaan fariisimada ciidanka qaranka haddii ciidanka qaranka ay baqdaanna waxay weerarayaan sidii caadada u ahayd waxay weerarayaan dadka deegaanka ee ay ododaagta yihiin sidii ay ka geysteen boqorkeyn iyo boorleyo kale ay laga yaabaa markay deegaanada kale ay hadda qoorlugud ba farta lagu fiiqayaa yaagaasi marka in difaac aad loo xidho waagaag wixii ka soo kordhay wayno barnaamijyada dambe nabadgelyo